howlgalladii ka dhanka dagaalamayaasha kooxda al-shabaab ayaa hakad ku jira waxaana wejiga labaad ee aadka loo sugayay u muuqda in uu mar kale ku yimid dib u dhac kale dagaalamayaasha kooxda al-shabaab ee garabka shabakada al-qaacida ee bariga Afrika oo ka faa'iideysanaya hakadkan ayaa dardargelinaysa howlgallada qorsheysan ee lala beegsanayo saldhigyada ciidamada iyo xarumaha dawladda quburada ammaanka ayaa dardarta cusub ee kooxda ee la soo baxday uga dhigan tahay inay doonayso inay ka faa'iideysato hakadka ku yimid cadaadiska ay kala kulmayeen howlgallada dabayaaqadii toddobaadkii hore caasimada Soomaaliya waxaa ruuxay qarax isxigay dabayaaqadii toddobaadkii hore caasimada Muqdisho waxaa ruuxay qaraxyo isxigay iyo rasaas kadib markii dablii ka tirsan dagaalamayaasha kooxda al-shabaab ee galeen hotel ku yaala xeebta Liide ee Muqdisho kadib markii uu ku bilowday laba nin oo isku soo xirtay walxaha qarxa isla markaana ay xigtay in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay gudaha u galaan hotelka ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa saacado kadib waxa uu suurto gashay inay soo afjaraan weerarkii al-shabaab ee ku qaadeen hotelka Birial Beach ee ku yaala xeebta Liide inkastoo ugu yaraan 9 qof ay dileen dagaalamayaashii kooxda al-shabaab intuu u socday weerarkii ay ku qaadeen hotelkaasi qabsashada hotelka oo ay dhacdo kale oo naxdin la ayaa ahayd falkii ugu horeeyay ee dhacatan iyo bishii November ee sanadkii tagay markaas oo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen hotelka Villa Race oo wax yar u jira madaxtooyada Soomaaliya si kastaba ahaatee bishii Febraayo sanadkan waxay sidoo kale qabsadeen dagaalamayaasha al-shabaab guri ay deganaayeen saraakiil sarsare oo ka tirsanaa militariga Soomaaliya kaas oo ay sidoo kale martigelinayeen xubno ka tirsan ciidamada macaawisleeda oo ku soo dhaawacmay dagaal ay al-shabaab kula galeen gobolka Hiiraan axadii toddobaadkan waxay sidoo kale dagaalamayaasha kooxda al-shabaab ay isku dayeen inay Muqdisho ku dilaan sargaal sare oo ka tirsanaa booliska oo gaarigiisa loogu xiray walxaaq qarxa ee meelaha fog laga maamulo qaraxaas ayaa yimid toddobaadun kadib markii qarax kan la mid ah uu magaalada ka dhacay kaas oo lala beegsaday sargaal ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo ilaaladiisa gaarka ah dilalka qorsheysan ee loo adeegsada walxaaq qarxa waa xeelad taariikhi ah oo caan ku yihiin kooxaha argagixisada ah waxaana inta badan ay ka dhacaan magaalada Muqdisho weerarada iyo qaraxyada toddobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxay imaanayaan kadib weeraro waaweyn oo xiriir ah oo lagu qaaday saldhigyada ciidamada Soomaaliya oo dhan dabayaaqadii toddobaadkii hore ayay markii dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada Itoobiya ee ku laayeen degmada Doolo ee koonfurta gobolka Gado halkaas oo ay ka dhasheen khasaare iskugu jira dhimasho dhaawac ma jeceshahay barashada luqadda Ingiriiska balse ma u weysay fursad aad ku xaadirto fasal caadi ah ama offline ah haddaba Fahna Academy waxay ku haysaa xalkii aad kaga gudbi lahayd caqabadaas ka hortaagan barashada luqadda Ingiriiska waxaynu si online ah waliba aad u fudud kugu bari doonaa Ingiriiska adigoo gurigaaga jooga waqti kasta iyo meel kasta aad dunida ka joogto waxaynu idin diyaarinay manhaj dhammaystiran oo ka kooban 3 xir oo kala ah Basic English aynu ugu talagalnay ardayda bilowga ah ee aasaaska ah Speaking English aynu ugu talagalnay ardayda doonaysa inay bartaan ku hadalka luqadda Ingiriiska iyo Grammar oo ah naxwaha luqadda Ingiriiska dhammaystiran si aad u hesho warbixino dheeraad ah iyo tusaalooyin la xiriir WhatsApp numberka shaashada kaaga muuqda mahadsanid